halkani waa garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho waxaa soo caga dhigatay diyaaradii siday madaxweynaha Puntland ahna musharax madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Saciid Cabdulaahi Dani waxaa soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiin kale iyo shacab isugu soo baxay afaafka hore ee garoonka aadan cadde waxaana uu caasimadda ka bilaabi doonaa ololihiisa doorasho isaga oo ku biiraya dhowr iyo 10 musharax oo ku sugan magaalada Muqdisho kuwaasi oo doonaya hanashada kursiga ugu sareeya ee dalka jaamacadda Baraani oo ah afayeenka xukuumadda Puntland ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka aadan cadde madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Dani iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu qayb ka yahay gudoomiyaha golaha wakiilada ee dawladda Puntland iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa halkan maanta soo gaaray Muqdisho waxaa dabcan ku soo dhaweeyay sidaad la socoteenba mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ee qaybaha kala duwan ee golayaasha xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labada aqal iyo qaybahooda kala duwan dhammaan waxay ahayd munaasabad soo dhaweyn oo qurux badan waxaan runtii aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa sidii wanaagsaneed ee Muqdisho loogu soo dhaweeyay waa safar taariikhi ah waa safar Soomaaliyana oo samata bixin maadaama madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu yahay musharax madaxweynaha Soomaaliya qorshayaal badan ayaa jiri doona oo dabcan iyo bandhig weyn iyo shaqooyinkiisa iyo aragtiyaha iyo siyaasiga ah oo dabcan aanu gadaal idigala wadaagi doono oo warbaahinta aan mar walba si joogto ah aan wada xiriiri doono waxaan idin mahad celinaynaa intii aan soo daahnay iyo sidii aad noo sugteen waxaan idin mahad celinaynaa shaqada wanaagsan ee aad dalkiina iyo dadkiina u haysaan sida hagar la'aanta ee wiilasha iyo gabdhaha wariyaasha ay had iyo jeer u taagan yihiin qoraxda inay shaqeeyaan maadaama aanu wariye ahay dabeecadaasna aad baan u fahansanahay ujeedka safarkuna waxa uu la xiriiraa hayaanka Soomaaliya dhismaha dawladnimada Soomaaliya oo ka qurux badan midda maanta jirta waxyaabaha kale ee ku xeerana dabcan gadaal baan iga soo sheegaynaa aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan ugu talagalnay inaanan idigu hadlayn muuqaalo kaliya ee ugu yaraan heshaan xog wafdiga madaxweynaha qaybka ah golayaasha kala duwan ee dawladda Puntland iyo sidaan hore u sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl waxa ay muujinaysaa culeyskeeda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland ee la socday sida ay reer Puntland ay ugu taagan yihiin mar walba badbaadinta dhismaha dawladnimada Soomaaliya Muqdisho iyo dadka jooga iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed waa u mahad celinaynaa waa safar taariikhi ah hore u sheegay si gaar ah waxaan markale ugu mahad celinayaa warbaahinta oo wada xiriiri doona oo wada shaqayn doona waxaan rajaynayaa inaynu wada jir u sameeyno Soomaaliya ka qurux badan midda maanta haysan Saciid Cabdulaahi Dani ayaa ka mid ah musharaxiinta ugu saameynta badan ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha dalka xamdiladan Somali Television Network Muqdisho.